xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa maanta ka dhacday magaalada Dhagaxley. xafladaasi ay soo agaasimeen maamulaha markaska Nuurul Islaam oo lagu xifdiyo Quraanka Kariimka. waxaa ka soo qayb galeen culamaa u diin, arday iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa xafladaasi lagu dahfuray aayadaha Quraanka Kariimka. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka koowaad Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinayaa Allah goobtan barakaysan arlada uu ugu jecel yahay adoomadu Allah arlada dusheeda ugu jeclaa ay joogeen na keenay hay'ela goobta dacwada lagu hayo waa arlada meesha ugu qaalisan Allah uu ugu jecel yahay أحب البلاد إلى الله مساجدها أبو نبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أدونك وحوج عليها ماش الذكري سلوها يو مال ذكري سلوها ينا وحا أغبضا أو الله لوح مساجد قوب والبو الله ذكري سلوها ينا واجع عليها وحنا شكلهن الدومة قوب تجوغان أحب العباد إلى الله إليهن الدومة كو الله وجع عليها
إن شاء الله تعالى قوبتن فدقيدا وعبادو دقيسيقيدا وعبادو صعد كيدا وعبادو نغشديدا وعبادو كل وانا لو قريا الله وحوير ونكتب ما قدموا وآثارهم وحي عبادو يهر مرسدينا وان أقرينا راد كودنا وان قرينا عبادة إجلوسي سعودية لغسو النقونا إن شاء الله مركا كواد هلا نيستو فدقان إنو عبادة أجر بات كهليسا نغشدي دقيسيقا كل هلا نيستو waxaan insha Allah ta'ala saddex dardaaran baan dardaaran ma dheereynay dardaaranka koowaad culuma maanta la soo saaraya culumadan ayaga ee culuma ma noqon karaan quraanka haday bartaan culuma ma noqon karaan macallimiin fiican oo wadaadaha haday heeraan culuma ma noqon karaan hal shardi bay ku noqon karaan culumo halka shardi muxuu yahay haan salkay ka tolontaa in ay helaan raas iyo cid iyo saldhig diimeed waa inay helaan saldhig diimeed waa inay helaan Soomaalida haanta waxay dheen salkay ka tolantaayo salka haanta haday ka duleesho wax walba oo lagu shiba gadaal bay ka sii daynaysaa ilmahan ayaga maanta waa tuubo cilmiga anaga ku shubahayna culumadii baa ku shubay nin walba ku shubahayaan laakiin salkii hoose wax reebay waa guriga hooyada aabaha macallinka koowaad ee u muhiimsan canuga waa hooyada macallinka koowaad ee u muhiimsan canug waa aabaha labadiina hadaad xuntiin canugiina ma toosi karo canugiina waligiis ma toosi karo hooyo xumay gabadheeda jalbaab waan bari waynay intaan korey hoos isku dhignay baa hooyadii caariyada ahayd gabadheedii la qaraacay wax walba loo sheegay la keeri waa hooyadeed say cidda ku sameynayso bay sameeyno garbasaar bay iska xiraan waka iska qaawan aaba xumow aabihi diin la'aanta midka uu dhalay salaada aan masaajid ka aadin wiilkii masaajid ku keeri wayn aabaha muxuu ahaa beenaalaha ee cidaba ilmaha asoo been sheegay ay maqlaayeen wiilku dhale waxaan ku keeri wayn ilmahay dhaleen war beenta way xunt say u xunta hooyaday baaba aabahay hooyaday baaba sheegaan be say u xunt aabahay hooyaday xaqu ka soo bartay ilmaha egay yar yihiin labadooda waalid waxay sameeyaan kulli saxbu mudi hadhow egu 30 sano ama yara weynaado oo aqli yara yeesho garan aabihi inuu khaldan la bilowgi aabaha iyo hooyada ayaa macallinka koowaad ilmaha macallimiintu war waalido waxaan ku leeyahay macallinka koowaad waa adig anta sababun li islaahi banatik anta sababun li islaahi abanaik wiilashaada inay fiicnaadaan adaa u sabab waalido wiilashaada inay xumaadaan adaa u sabab hooyo war waalidka toosnaan hal laga helo saadarteed buu Allah subhanahu wa ta'ala abaalgud badan waalidiinta ilmaha tarbiyaan uu u ballan qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninkii canug wax baro canuga asaga sharciga baro gabadha ayada u guuriyaday gabarte aniga asaga jannada daris baan ku noqonaynaa saasaan noqonaynaa maalinta qiyaamada marka insha Allah ta'ala cibaadada koo guriga ka bilaabata khayrka kulli gurigu ka bilowda waalidu toosno dhamaadeen waxa imaadeen dhalinta maanta aan siinayna duruusta aan siinayno duruusta aan siinayno ayaa imaadeen waxaad ogaataan maanta waxaan ila siinay warqad ma oho waa amaana nili xambaarinaya amaana kitaabka Allah nili xambaarinaya waraaqda maanta aad qaadanayso shahaado weeyaan waxay sabab u noqonaysaa inaad jannada gasho oo kuugu dooda jannada inaad gasho waxay sabab u noqonaysaa shahaada maanta lagu siiyay inuu bari Allah hortiisa ay ku dacwayso maxaa yeelay Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-qur'aanu hujjatun laka aw alayk quraanka maalinta qiyaamo ama adu ku doodiyo jannada in lagu geeyo uu ku doodi ama adu kugu doodi oo cadaabka in lagu kaxay u doodaa amaana maanta nili dhiibaya amaanada ninkii ka soo baxo waa liibaanaya ninkan qaadi karino tasho ani ma qaadi karo amaana maanta gacanta ka taago shahaada ma qaadanay hebel shahaada muxuu diiday amaana ma qaadi kar buu yaraan dhahan soo tasho naftaada la tasho isku noqo go'aan soo gaarna shahaada qaadato
ammaanada ayada waraaq ma ahee waa ammaano iyo mas'uuliyad ku saaran oo sabab kuu noqon inaad jannada gasho ama cadaabka gasho ogow waxaa tahay maanta laga bilaabo imaaman muqtadiyan mid lagu dayanayaad imaaman mutaacan in nahayta wa in amart دعوتك ما أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت maanta laga bilaabo waxaad noqonaysaa imaam lagu daydaad noqonaysaa hogaamiyaad noqonaysaa maanta laga bilaabo mid labaad saddexaad in ku soo gabagabaynaya macallimiintii ardayda wax bareen u ducay horta ilaahay idinkii dambigooda Allah dhaaf amiin dambigooda Allah dhaaf ilaahay idinkiis sabab jannada ku galaan adduunkana rizq loo waasiyo cilmiga adoomada barayn Allah ka dhigo maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiis baa wuxuu yiri inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna muallimiyan ala muallimiyan nas al-khayra alle iyo malaa'iktiisa waxay ku saliyaan oo amaanaan khayrka dadka bare macallimka waa nin qaali wa ahabbul ibadi ila Allah khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ada adduunka ninka quraanka barto dadka si bara ugu khayr badan ogo mushardoon ha ahaanin shilimadoon ha amaanin saacad ha ku xisaabtamin ilmaha waa inaad daacad u noqoto ilmahaas waxaad baraysa waa inaad shilimaad ha ku xisaabtamin faa'iido mal waqti ha ku xisaabtamin waandaali ha ku xisaabtamin war aakharaad shaqaysanaysaa macallinow Allah ku sharfay sharaftu alla ku siiyay waxa mid ka soo bixin noqo insha Allah ta'ala waan ku dheeraan laha ilaakiin goobta muxuu ahaa waqtiga ayaa daqiiqada gaaban ilaahay idinkii amaanada dhamaantan Allah noo sahlo subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا وحسلام يا أرضاً علماء كتابك حبارتي ويلي قبر لما ستمد هواينك والدينتا رجي ضم أربعة يا علماء ستمد ماشا وحاكد عيسى حفلة دينيد oo kitaabka alle dhalinyaradii xambaartay lagu siinayo shahaado sheekheena ka hadlay dadka qaadanaya eebba subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub qofkii weyneeya ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdee shacaa'irta diinta qofkii weyneeya waxay ka mid tahay taqwada quluubta ayay ka mid tahay dad saaka idinka sharaf badan ma joogo dhalinyarada intay kitaab arday macallimiinta intay soo bareen qur-aanka xafiday ee imtixaanka laga qaaday ee shahaadada la siiyey culimada dadka ugu sharaf badan baa tiina ugu fiican ciyaalka lala hadlayaa waalidku ha inoo dambeeyo kitaabkii aad xambaarteen inaad gacanta ku haysaan baa la rabaa wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka qur-aanka bartay dadkana sii bara idinku fiican khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allamahu ka idinku fiican waa ka qur-aanka bara dadkana sii bara macallimiinta waad aragteen aad baa loo liidaa waxaan macallin u sheegayaa iyo ka qur-aanka bartay gabadh iyo wiilba xambaaray wax idinka sharaf badan inuusan jirin kitaabkii qur-aanka ay munazalka ay nabi maxamed ugu soo dejiyay dhulka loogu talagalay in lagu xukumo ayaad xambaarsantihiin aad yaryaraateen waliba atiini soogaada maxaa ka mid ah qur-aanka waxaale uu kaga bedelan yahay ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana war qur-aanka miyayna dhuuxduuxaynin oo ku fikiraynin walow kaana min cindi gayri illaah ilaahay waxaan ahayn hadda xaggiisa uu ka ahaan lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira khilaaf fara badan bay ku arki lahaayeen waxaa la rabaa
dhalinyaradan kitaabka xambaartay waa guri hadda waxa meesha ku jira waa masaajid quraankii waa masaajidkan waxa la rabaa in la buuxiyo sidaan u maran yahay waad marantiin hadda maxaa lagu buuxinayaa waa in tafsiirka barataan ahadiisi barataan nahwi barataan sarfiga barataan aad weelaysaan oo buuxisaan waalidka waxaan kula dardaarmayaa iskuulka macallimiin baan nahay waxa ay ku haween oranayaan ilmuhu way iga habsaamay tugsiga macallin quraan koray ugu dhamee ilaahay hawd noqdeen dadka noocaas waxa aysan adduun bay rabaan adduunkana waxa kaga fiican iyo aakhiriya adduun waxa kaga fiican qofka quraanka xambaara waa la soo ogaaday marka maxaad ku ordaysaa kitaabkii munazzalka ah ee samada laga soo dejiyay ee dunida loogu talagalay in lagu maamulo ilmaha wax xambaaray yaa ka fiican oo ka wanaagsan wax ka wanaagsan ma jiro maxaad ku ordaysaa afgaal waxaad ku ordaysaa maxay tahay afgaal inuu barto ilmaha waxa la rabaa in la dhiso oo iyo carabiyaad laga dhiso waalidku ay iska daayeen waxa jirta macallimiin baanu nahay in lagu oranayo ilmaha lacag ma haysta idhig waxba ku siin maayo iskuul buu geeyay 3,000 boon ilmiga ka bixinaya iskuulka markuu geeyay adiga waxa kuma siineen macallinkii ku rafaadeeyo ilmaha midha kama dhalanayaan waxa far badan oo waalidkan la hadlayaan aanu ka mid ahay caruurtu inay idin xukunto wayna wada xukuntaa waxay ku oranayaan dugsigii lagu cadaadiyay la rabo quraanka in lagu baro waxay oranayaan aabo dugsiga ma rabno dugsi fiicanige hooyo dugsiga ma rabno aroortida caruurta wala ka haysan wala la tag dugsi kala lagu xaray kiina markay muddo joogaan ma ka sii xayn waxba ma baranayaan macallinkoodii hore soo farbaray ay caasiyeen waalidka waxa la rabaa caruurtooda inay u dhowrtaan kitaabka quraanka la xambaarsiinaya macallin baa wax baraya in la iska ilaaliyo la rabaa anagu waxaanu ku soo dhigdeynay dugsi loox waa tusaale marka hada ku soo qaadaya markaanu nala keenay dugsiga minna fadhiyana laga qaaday jiska hore markaan dhama soo hore markaan dhammeeyna fadhiyana laga qaaday maryama markaan gaarnana qaalina farjiro geelana laga qaaday kolkaan dhamayna sidoo kale na looga qaaday maxaa dheeraa waxaas macallimiinta waa la xushmeynayay aaga subaga hoos looga dhumi jiray macallimiinta ma dhaqaaleysatana macallimiinta dhaqaaleysta waalidow waan ognahay wali waa la dagaalama waa la haayaa ilmaha macallinka u geysay muxuu noqonayaa marka macallinkii markaad ka nixiso waan ognahay ilmaha kolku quraanka garan waa la cabsiyaa kiyo xabaadi buu iman macal gabadhii weynaa ka saanteeda ordaysa dugsiga kugu imanaysa waalidow caruurtiin u dhowrta waxa weeyaan dad baa idinkoo kala ah ama gabadh noqdo ama wiil oo la guursado ilma dhalin waxa adduunka la isasiiyo u qaalinsan waa ilmaha waxa la rabaa inaad ilaaliso oo ku ilaaliso diin inaad duco u raadisaa la rabaa waalidka waxa loogu soo noqday macallin baan ahay macallina wax uu og yahay ilmihi kugu bari waaya diinku wax kugu tari waaya kugu tari mahayo wax kale marka waxa weeyaan rasuulka xadiiskiisa waxa ku ah ibn aadamka amalkiisu waxa dhayaa ila min 30 maxaa kamida waladu yad'u lahu ka ku soo dacay waa kee ilmaha ku soo ducaynaya waa ka diinta bartay markuu quraanka soo akhriyo iyo markuu waxyaabo ilaahu waalidkay gaarsiyo oranaya waalidku u ducaynaya ka way laakiin ki aad sarwaalku ka dhacay ee jagaxii raamxuu ku qaban waxba ku qaban maayo waan badiyay wixii ana leeyay naftayda shaydaan buu ka noqday assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim maanta mahaddan waxa iska leh madrasadan nuur islaam raxmadan oo ilaahay oo meeshan maanta keenay
waxaan salaamayaa culumudiinka iyo waalidiinta iyo ardayda meeshan ku soo kulantay oo ilaahay uu soo waafajiyay maanta in meeshan isugu imaano mahadaas ilaahay baa leh waxaa mahadda kala leh labadii waalid iyo macallinkii sheekhii ilmahan waxbaray oo maanta qalanjibiyey ayaa mahadaas aakhiri adduunyo ayaga iska leh allah ugu shafeecay aakhiri adduunyo nin walba ilmihiisa hadduu waxbaro haddii aynan ahayn madarsooyinka oo wax laga barto dugsiyada laga barto haddaynan ahayn ilmaha dhammaan waxay noqon lahaayeen joqoro wax jaad cuna iyo wax hashiish caba iyo wax kale noqon lahaayeen waxaa gacanta midiga madarsooyinka qur-aanka waxaa ilmaha tarbiyeeyey oo boqolkiiba 80 ka reebay inay duurka galaan oo ay maaragtay joqoro noqdaan waa madarsooyinka qur-aanka oo kariimka ilaahayna wuxuu jecel yahay oo ilaahay loogu dhawaan hayaa ninka qur-aanka ilmihiisa baro qur-aankaas kariimka ee kitaabka ilaahay iyo qur-aanka loogu dhawaan hayaa ninka ilmihiisa baro maanta waxaa farxad ninkii nool oo cunugu dhalay 4 qur-aanka dhameeyey oo maanta asna uu nool yahay oo wiilkiisa inuu xaakin yahay ninka asaga ee farxadda maanta uu leeyahay ilaahay qur-aankiisa dadka ilmaha qur-aanka dhameeyey muslimiinta oo dhan meel ay joogaan yay maanta ayay farxad u tahay hata aabaha iyo hooyada iyo sheekha culimada oo baray qur-aanka hata maaha wixii muslimiin meel ay joogaan bay maanta farxad u yihiin ilmaha ayaga ee maanta qur-aanka dhameeyey waxay sii barahayaan yaa sida ayaga wax loo baray dhammaan baa nin walba intan meesha fadhisay in la eg ayuu wax barahayaa asagana waxa kale in lagu mashquulo ma aha meel kale in lagu mashquulo ma aha kitaabka ilaahay qur-aanka in lagu mashquulo in ilmaha macnaha qur-aanka la baro in hada sheekhan wuxuu sheegay ninka dugsiga wuxuu leeyahay cunugu dugsiga iga bixi ma rabo kaas hal igeeyo macnaha macallinka wax barahaya oo cadaadinaya markuu arko wuxuu leeyahay kan waa ku cadaadinaya wuxuu leeyahay kan ma rabo aniga kaas xagga kaas fiican kaas hal igeeyo kii markii la geeyay wuxuu leeyahay aniga kaas macnaha kan waa fahmay macnaha inuu wax barto ma rabo qofka go'aankiisa saasay markan ilmaha in la raaca rabitaankooda loo raaca maaha faa'iido waxa ku adoo nool cunugaada oo 4 qur-aanka uu ku dhimeeyay ayaa faa'iido ku aakharana way ku anfacaysaa adduunyada way ku anfaci hadaad dhimata ayuu macnaha ku soo niyohaya wax kasta hadaad nooshahay ayuu qur-aanka ayuu macnaha ayuu ku saaraya waxaad ugu mahmaaneen ba hadda koor wuxuu yiri meel tuulu deganaa markaas waxa weeye asaga wax yaasiin yaqaan ayaa macnaha laga arkay markaas waxa la yiri adeero kaalay nin baa yaasiin kaalay ninkan maaragtay kaan loo soo yaasiin markaas uu baxay markuu dhaxda joogo ku kale u yiri war markaalay nin baa sakaraad markaas uu yiri war kaalaya war tuulada yaasiin la'aan baa looga macnaha ayaa loogu dhamaan doonaa buu yiri yaasiin la'aan markan jaahilnimada waa wax xun waxa kale la barahay waxba kama jiraan waxa ajir yaasanaad laga helayaa anigoo ku hadlaya maamulka dhagaxley maartay sheeksanji maamulka aan nahay anagoo ku hadlayna waan u duceynaynaa sheekh Ibraahim maalku anaka 2008 waa meesha soo degnay sheekh Ibraahim waxaan walaali waa isku dugsiga ugu koowaad asaga ayaa meesha ayaa macnaha ay ugu badnaa dadka ayagoo leh wala dhulkaniga waa ka soo tagno dhul waxa imaanay gaale maxay ayagu sheekh Ibraahim ayuu dugsiga meesha ka asaasay markaasuu dadkii oo walaaho ku jira wixii ayuu maartay dugsiga meesha wixii kullu keenay ilmaha meesha oo wixii xulay gali lahaayeen iyo saqajaanimadii iyo maartay iyo federadii iyo wixii ay gali lahaayeen oo dhan ayuu ka reebay ayuu ilmaha meesha isugu keenay
جي وكما سيئة وأدعينا شيخ إبراهيم علماء كانوا ضمان مال على مال الجوجان علماء المها وحبرها يو آدي آد بأدعينا بقولك بقول مركب وحاول والدين توحن لنا هاي هذه عنو جاجا هذا مارك أنا لسعنو ومعلنك أنا تلفون كقرني وأنا صوّعن أو ذا ورمكوء ماذا عنو جاي مكوء ماذا مثلا بارك ويلك ما قبلي مكوء ماذا هذا عنده ودكتور أنتم سئمان نحن ما لا نفرستو وهذا إسكالغلو وحنو برتين كلا هذا الوجين وحاول هذه ربطها ومارك واقصارتي waxaa loo baahan yahay ilmaha waxa macalinka la shaqeyn kara waa aabaha iyo hooyada inay macalinka ay macnaha ay maaragtay ay la shaqeeyaan oo soo maraan dugsiga imaadaan ay dhahaan macalin ma imaaday wiilkii ma jooga gabadhii ma jooga inuu dhaho macalinka uu macnaha gacanta ku qabto sababta nin hadda nool oo macnaha oo maaragtay joogo oo ilmo dhalay oo ilmihiisii maanta aan dugsi dhiganaynin qasaare ka weyn lama arkayo waa midda ugu xun إلهينا وحاول لوجود وانكرا إن القرآن كقبك الميس برا إلهينا الرال كان نقولي أسجن الرال وكان نقول هيا مركب وحاول لنا وأدين دعينا علماء ما رأيت خير الله كده ما دخل القرآن الله كده ذات كل ذلك هي الدين تربية أيجا والدين ترى وحلنا هاي إذا كان خير الله إنسيو المها دكسي هلا كانوا المها دكسي هلا كانوا ما لها كان الأردائي ما يعني ما لها دل أي نقولين يعني مقادرات إيميل كان إذا كدعين هلا كان الدكسية المها قرآن كهذين برتين شيء آخرية الدنيا إذا أنفعان مسلمين تنا أيو أنفعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة الأطفال قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيذ الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتات في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فيه تقاضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكي هذا إبرتك هذا له إلهي قلاده إن شاء الله. أنا وإيدي إيدم فرحسن فرحتي والله قوة كرمه ما يكفرحسنا حفلة ديني حتى قالين جبين أولاد قبل يو ويلد الناس كجرانو قرآن كريم كإلهي كرسيه في دين شهادة لك قدونسي وشهادة داس ولي بواها إنه قاس أنت قرآن كهفدي عدينتي مالنك حقيقي يلا هقول شهادة يارمه شهادة داس أنا قدونسينتي يو حفلة دليس كقدونسي أي حقوقي بقال إيدي إذا فرحسنا
ما إن دعاء هو إلهي قلاده أولا والدينتي معلمينتي والدينتي مغلي بلانت لهاي هويوينكي أولاديو هاي هتربيين دوكسوغ هندرين يونيفورم هنغادين إني قرادين مالنك فرحاسين هوركوين دادكي كدداليا إن بدن ما يفضي إني لندوءاي إلهي جنة الفردوس إني انورسن يا هورتسين ورسده إن شاء الله والدين تاس إلهي جنة الفردوس حق ورابي أولا والد كنكوري أو أنا ندوءاي ولد بواه الشيخ إبراهيم عبد الله والد كدالي عبد الله مالي ولا إرهاء مدي شيخ إبراهيم عبد الله مالي والهم برنا هيركم ونجيك في دين مالها ديرفن إلهي كماتسن إن شاء الله ولسين ورسده لنقول بوالد فرصة دقالي هو نجيك هاي سنة هل كفايدة يستدين مياه ولكن جيك نول برهم نول ولا نروم الدون ولي لا ريلانكي والوين كعلو مسؤول إيرتي جروج هذا كبتاي مسؤول هاي جبودشون كويتاي هاتين جروج كنا قتيا لمدة تايرين ده كدين تقرداي الدون واليارو والهنون كوبمو فايدة دي أنا ما إلهي كرسي لكن دين الإسلام كبردي إيد ولا إنك دعاء لنقول بأوجي كل ما ودين حفلتهم حقوقي قالي وسي والد شيء بيجينا فردوس الله قلي إلهي إذن شيء ولسيم قصة ده إني آمين إنتها لنقول بأبرة أو حلقهم في دي والدين تسي أسوب إلهي جن فردوس هنك بشارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد أخواني أولا إلهي وما هذا إسكاله إلهي نأومي وأن خلقي وأن إرساقه هيو وإلهي إذن كيسة جنة أن كسوه إنه إلهي إذن كيسة أيان أمه العلنين حفلة دان وحفلة بركيسان وأنا حفلة ديماد وي إلهي باكم مهدسان وحاكلوكم مهدسان معلمينتي باكم مهدسان مشايخ باكم مهدسان iyo intii diinta u kaalmeynayso dhan baa ku mahadsan intaas bacdigeed ilaahay waxaan ka baryaynaa janno baan ilaahay ka baryaynaa qaatumadan ilaahay noo subiyana waa baryaynaa caruurta aan ku qariibnay oo culimadu ku qariibtay oo macallimiintu ku qariibeen
إلهي إنه سن قريب كوالدين تنقدين قريب كأرضنا إلهي أصلا قارين بان إلهي كبرينا كوي دين كتوسنا هذان إلهي كبرينا كوي باريال نقدان إلهي أكبرينا إسراقات يعون هيان كوي حلال أي نقطان إلهي أكبرينا هذا أنه والدينتي إن شاء الله تعالى أنه واددان لي أنت تبرت النضاء أنه وحان أولني عرورته إنان عن جيرة السينو إلهي عن جيرة النسيان وكادينه وشقينا أيجا لركوضة إيو مقارنة نظافة أن كفكرنه هذانا أن أصدرنه دين تان أصدرنه هي مدرسة أن أصدرنا أنك ثلاث نظاهيد وحي كلا أو وافجنت إلهي إيو سيد القرآن كي وحفظين وحان إلهي باكم حسن معلن كأن معلن إبراهيم باكم حسن إيو معلمين تيسكالة أو لحريرته أنك وحان أودناه إلهي إن أبرنه إلهينا برنه أن أدعينه دعاء لنا الله وأقبلنا أنه أودناه وحاجره ركسان لوجو سو قريبي رج يضمر بو الدين تلبري oo ilaahay dankiisa waalid iyo walaal iyo wax walba ay ku soo qariibeen oo markay diinta barteen ka tagay isaga tagay oo aaday meel aan munaasib ahayn aaday markaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan la duufsan oo ayna duufsanin kuwa diinta aan u adeegaynin ayna duufsan baan ilaahay ka baryaynaa martida sharafta leh oo culimada ah noo timidna waa mahadsan yihiin ayaguna waa u ducaynayna Allah barakeeyo akhriga adduunka Allah barakeeyo waa kuwii diinta indhaha u ahaay ilaahay culimo la'aan nama dhigo diintana Allahna waafajiyo abshirtana Allahna siiyo qaxooti baan nahay ilaahay qaxootinimada nabadgelyaha lagu siiyo Allahna naga bixiyo Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa colaaday ku jirtaa ilaahay colaadaha ka bixiyo dal nabad oo khayr qaba Allahna siiyo meel aan ku dhaqanno nabad ugu dhaqannana Allahna siiyo intaas aan ku gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahi rabbil aalamiin walidadin sheegayaan hanuun faahim biimihi horta madkoowad ulmaadana boogati Allah barakeey sidii mayl ulmaadani sheegday waqti afku isku daboola galnya iluganay hadalaayeen yaa sheegay wala yahaneenka baheeno martanamadii yahaneenka baheen luga igalnya markaas ilaahay wijijeyman ku toogan anti markaata nagadan waana jinseedan ku toogan maalanka awlaad walbarayna saas ama usuuna saasan ku toogan waalidiinta awlaad dhaleeno ilaahay faliyeeyoon awlaad dhar shodhigaay wala jodon suubiyay raashinsho diyaariyay diinta la kormeerayoon Allah barakayoon saasan ku toogan ilaahay ma ku toogan anti muslimiin ba ma di madrasa badhigaas anti ilaahay barakaay muslimka dhangal anti ilaahay barakaay madrasa kasto la muslim adhikaw diin ilaahay la ka baradaw imaad kasto diin ilaahay la ka baradaw anti Allah barakaay ana dooga ma dheerayo hagaabiya ilaahay faliyay ma intoogan أولاد هذا أنت كقوسم أنت إلهي كرش الله فاجأ يلدي الدين كنتي ألقلي يا إلهي كتوبة مبادئ هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhanka kale ardayda ka qalan jabisay ayaa warbaahinta la wadaagtay dareenkooda ku aadan qalan jabintooda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جيج معلم فقط أنت ما دام شهادة قرآن نقدونسي معلمينتي والدينتي شرف لان كستو إلهان كم حديان إلهان كم حديان إلهان كم حديان معلمينتا دلالين من أنا أرد كلام دلالة سواء تنتيان سواء كلام هجاجين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الله باسكركو والدينتنا معلمينتنا مشايخنا دمان تسكوي ماتي إلهي ما اسكلكو دين والدينتنا إن شاء الله ما أنتو حنادو فرح سنهي إن الشهادة قاته أو ما أنت أنسان أنا فرح سن أنا تكبحه
dugsigana waxaan imaaday anigoo quraanka aanan waxba ka yaqaan maantana waa kana quraanka shahaada aan ku qaatay dugsiga ilmaha banaanaha taagan diinta ha bartaan diinta way anfici diinta wax anfac weyn walaalayaal jiifka kaca diinta ilaahay waa in anfacaysaa آخرية الدون بعيدا كل واننا دين تأمبرنا والدين تنباري أو نقلنا معلمين تينا إيه والدين تينا دمي والله دافو والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله يا مهد إسكاله وميشا مانتا نوكل ميي إلهي كسكو والدين تيدا يا ميشا مانتا يكينين قرآن كان الله درتيسا يا أودمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyn maamulaha markasga Nuurul Islaam ayaa ka warbixiyay taariikhda markasga Nuurul Islaam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. May salaamay dadka marti sharafta madaxda iyo waalidiinta iyo ardayda kulli salaam insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبعد السلام إن شاء الله ولا ليال أنا داير مفضل كلمة ما يفضلها وليار وقاضي المدرسة إن شاء الله تعالى ما أساسنتا لما تكون إتمنكي يلا أساسي إلا حلقاس هودني إن شاء الله تعالى أرضي بدن قبتي إلى لباتن صدق دور مالن عدد يعني حسوسنا إلى صدق مالن oo dugsi dhigayaan yahay ku bati intaas xasuusana dadkii kale quraanka dhamaay baahay wala koob korma insha Allah sanadkii hormay siinay shahaada tumay afar arday sanadkan insha Allah taala may ba shahaada siin fadayna ila 20 iyo la marday sanad walba insha Allah taala may fadayna inta koran socona hoosnin dhigna insha Allah ya fadaan waalidiinta may balaha إلهي سنبرخي ددالن جهدي بدن بيدن ددالك سنبيسنا إن شاء الله تعالى كان يساعدك وصلايتهم هذا السنة إن شاء الله تعالى وركض يرين فضو مدرسين انتهى هذا الفضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.